Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelkayga Modern Somali Food. Ramadaan mubaarak ayaan idin leeyahay idinka iyo ehelkiinaba. Waxaan ilaahay nooga baryayaa inuu caafimaad qab inoogu dhammaystiro ramadaanteedana bashbash iyo barwaaqo inagu gaarsiiyo. Fiidiyoogan maanta idin la wadaagayaa waa shurbada ama suub waxa aan ka sameeyay pumpkin ama bocor. Insha Allah waxyaabaha aan ku dardaray iyo sida aan u sameeyay waa idin la wadaagi doonaa inta fiidiyooga lagu guda jiro. Inta ka horeysana waxaad leeyahay dad channelkayga ku cusub tahay fadlan subscribe ii saar dadkaagana iyo ama asxaabta ama ehelkana la sii share garee anigana dhiirigelin ayay ii tahay. Dadkana kala badan YouTube-ku insha Allah wala sii wadaagaya hadduu fiidiyooga laagtiisu halka hore marto. Marka suubkan quruxda badan aad arkaysaan waxa uu ka kooban yahay butternut squash ama bocor waxaan filayaa Soomaali bocor ayaa lagu yiraahdaa. Sidoo kale waxa aan ku darayaa basal hal xabo oo basal oo weyn baan isticmaalayaa hadaad jeceshahayna kuwa yaryar iyo dhowr xabo isticmaali doontaa. Sidoo kale waxaan ku darayaa 3 xabo oo karoot ah. Sidoo kale waxa aan ku darayaa 4 xabo oo toon ah. Intaasoo kaliya ayuu ka kooban yahay shurbadeenu marka waa mainly vegetarian wax hiliba wax digaaga kalluun waxba kuma daraya kan. Fiidiyooga insha Allah inta ramadaanta lagu guda jiro waxaan idin la wadaagi doonaa waxyaabo kale oo sida shurbada kale ama suubab kale oo kala duwan cabitaano macmacaan yar oo fudud oo si fudud loo sameeyo waqti badan qaadaneyn. Ramadaantii hore everyday waan soo gelin jiray ama maalin kasta waan soo gelin jiray. Ramadaantana insha Allah waan isku dayayaa idinkuna insha Allah dhiirigelin ii sameeyo oo fiidiyoyadeeda yani sii share gareeya laagtana u badiyaa waayo tacab badan baa aniga iga gala inaan duubo inaan edit gareeyo inaan codka soo saaro inaan idiin soo geliyo iyadoo marka horeba nolosha iska mashquul tahay haddana waan idiin dadaalayaa marka waxaan rajeynayaa inay dad kalena kasii faa'iidaystaan oo uu sii gaadho. Marka suubkayga intaas ayuu ka kooban yahay imkana waan soo diyaarinayaa waana soo jarjarayaa daawasho wacan ayaan leeyahay inta fiidiyooga ka dhiman insha Allah waxaan rajeynayaa inaan qoraalka idiin soo saaro shaashada waxyaabaha waliba ingredient-ka markaan isku dardarayo isagoo English iyo isagoo Soomaali ah si dad kale oo yani aan fahmaynin luqadeena oo English ku hadlo kale ay luqada uga faa'iidaystaan baan leeyahay karitaanka iyo inay samaystaan suubkan marka daawasho wacan ayaan idin leeyahay. Imika suubkaygii uu ii soo bislaaday marka waxaan doonayaa inaan ridqo ama blenderka aan ku sameeyo si uu muxuu ahaayay smooth igu noqdo ama yani mid jilicsan buurbuurka oo dhan baan ka saarayaa anigu markaan sameysanayno suubka sidaas ayaan ku jecelahay hadhow talo yani waxaad ku cuni kartaa rooti ama isaga sidiisa ayaad ku cuni kartaa marka wax buurbuur ah oo dhan ayaan u diidanahay waan yani ridqayaa si uu soft igu noqdo. Masha Allah waa diyaar waqti badan iga muuqaadan inuu sameysmo adigu ilaa 20 daqiiqo oo badnaan ayuu iga qaatay sidaad arkaysaan uu soo baxay Masha Allah tabaaraka raxmaan waxaan rajeynayaa fiidiyooga inaad ka faa'iidaysateen haddii aad yani uu idin cajabiyay ama aad jeceshihiin waxyaabo sidan oo kale inaan idiin soo geliyo fadlan comment hoosta igu qor fiidiyooga
haddii waxyaabo kale aad idinku yacni niyadda ku haysaan iisoo sheega insha allah saan marka dambe yacni intaan alaabta soo iibiyo aan idinku soo sameeyo oon soo geliyo haddii ilaahay dhacdo رمضان مبارك يعني ذا الله يهم لبعض اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار إلهي أنت أنا هيسنا سي أنت هيستنا أسيادي وحينك قلت يا بش يبرواقو يفيدو كلا إن شاء الله تعالى تسوق إيمان دونه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ma jiro hoos ruux u geeya amaba hore kuu kaxeeya naftaada adaa hogaansha adaa haya keenadeeda halkaad u jihaysa weeye kun haybood noloshu weeye kun hawlood baa ku xeeran kun bay hakisaa dharaarba kun bay si hagaajisaaye haddaad ku hungowdo kaalin hareer kale soo tijaabi